بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. waxaa wacaa dadkeenu ka bilaabanayaa aayadda 167 oo suurat alacraaf oon kusoo dhex jirnay ka mid a qisadii reer bani israaiil baan kusoo dhex jirnay. intaynaan gudagelin dadkeena caawa dilkii xalayso aayad ugu dambaysay falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasiin. qiradantada waxaa carabku naga dhacay oo nidhi dofaaro, laakiin waa daanyeero wey ee dofaaro maa. marka sidaas ha loo ogaado sabbulisaana. waid taadama rabbuka layabcasana calayhim. markii reer bani israaiil la keri waayen oo laga keri waayo wixii ilaahay ka reebay subxaana watacaala, inay cahdi iyo ballan layska ogyahay ay iltizaamaanna laga waayay, ayaana subxaana watacaala marka uu imtixaanay ciqaabku adduunku badisay. waid waqti isnabigu taadana uu ogeysiiyey rabbuka rabbiga ayaa ogeysiiyey layabcasanna inuu soo saari calayhim dushooda inuu ku soo saari ayuu ogeysiiyey ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaama laga gaadhay man yasuumhum cid dhadhansiisa kuwa alcadaabi cadaabkiisa xun ee badan kuu dhadhansiiya. ina rabbaka rabbiga la sariicu lciqaabi, maxaa yeelay rabbiga ciqaabtiisu miday degdeg badan tahay, wainahu isaguna lagafuurun midkii dhaafo raxiimun naxariis. macnaheedu waxa wey markii la keri waayey iyo alla subxaana watacaala wuxuu ogeysiiyey inuu mar walba uu ku soo saari doono addoommadiisa qaar ka mida oo dhadhansiiya ciqaab adag adduunka ku cadaab. mar walba oy madaxa qaadaan in lagu sallidayo addoommo ilaahay addoommadiisa ka mid ilaa qiyaami saacana sidaa uu madaxa looga taagnaanayo dusha laga saarnaanayo. taasuu ilaahi subxaana watacaala ogeysiiyey oo uu macnaha wax way u sheegay. fi suurati isra ayaanu u tegi doonaa iyadoo intan ka faahfaahsan rabbi subxaana watacaala inuu ummad ku soo saaray, ummadaasi ay jajabisay, ay burburisay, kadibna alla subxaana watacaala uu ku yidhi mar walbood ku noqotaan waan ku noqonayna, mar walba wayn cudtum cidna, mar walbood ku laabataan dambigaan annaguna addoommo kaleeto oo addoommadanada kamidoo idin burburiyaan idinku soo saareen. marka ilaahi subxaana watacaala xukumkaasuu ku xugmiyey nimankii reer bani israiil ohan ogeysiis wey. marka rabbi wuu ogeysiiyey oo wuxuu u sheegay hadal weliba dhaari ku jirto inuu ku soo saarayo dushooda cid ciqaab adag dhadhansiisa ilaa qiyaami saacana sidaa ay ahaanaya. waficlo sidaasaa ku dhaca. ilaahi subxaana watacaala bulshooyinkii isaga dambeeyey adduunka unbay kolba bulsha gumaysanaysa, gacan hoosteed iyo dad hoostood inay ku jiraan mooyaane si madax banaan iyo dawlad madax banaanba uma dhalanin. mar waxaa haysta nimankii yonaaniyiinta ahaa, marna nimankii macnaha waxa kashdaaniyiin iyo kaldaaniyiin bulshooyin la odhan jira soo marayo ay hoostooda ku jireen. marna waxaa ay ku wareegeen nimankii nasaarada ahaa ee kiristanka ahaa ayaa haddana macnaha waxa weye ay hoos galeen. markii islaamkii soo baxay oo islaamku xoogeystayna islaamka ayaa jizye ka qaaday oo giir baa laga qaaday hoos galeen. weligood marka waxa weyaan sidaasay ahaayeeno rabbi subxaana watacaala addoommadiisuu ku salliday. casrigan kadaasiya quruuntan dhowla ilaahi subxaana watacaala gaaladiibuu ku sallidayba. hadda ayaa ugu horay meel goor ay isu yimaadaan koox yar oo yahuud ah oo meel jiritaan ku leh oo kayaan ku leh waxawy qarnigana ugu horay muddo macnaha waxa wey intaasoo kun oo qarni ah wax dawlada uma istaagin. rabbi subxaana watacaala qolo buu ku saliday. hadda lafteedana
يعني si madax banaan oo ummadaha ka madax banaayeen uma taagneen ummaday ku hoos jiraan oo bulshooyinka iyo dawladaha kiristanka ayaa macnaha ricaayanayo ilaalinaya macnaha sida ay tahay hadan rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu yani la marjinay sidii loo sheegay ummad kale lagu soo wada macnaha mid ay noqoto ama ummad islaamka noqoto ama mid gaalo kale ka noqoto macnaha marka taas rabbi subhanahu wa ta'ala oo weydiinaya nimanka yahuuda wa id waqtu فأذن أما واسألهم واحد ويسائل ويدي فإذ وقت ويدي تأذن أوغيسي حس أشهد إذ وقت تأذن أوغيسي ربك الرب جاء أوغيسي لا يبعثن والله إنه قصو صاري عليه بشر إنه قصو صاري إلى يوم القيامة إلى ما أنت قيامة لجاري من يصومه العدة دنسيسة إنه قصو صاري سوء العذاب عذاب يكي صبرا عذاب أبد kuwa dhadhansiiye inuu ku soo saaray taas oo lagu dhaartay subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay in rabbaka rabbiga nasri'ul iqaad iqaadkiisa mid degdeg badan tahay adoomada markuu doonayo inuu iqaamo oo iqaadkiisa waqtigu ugu talagalay ee gaadhay kama dib dhacdo wa innahu allana laghafurun miki dhaafo rahimun oo naxariis adoomadiisa wan wanaagsan Allah subhanahu wa ta'ala uu u dambi dhaafayo waana uu naxariis rabbi subhanahu wa ta'ala وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقطعناهم وانقوقلنا غير بني إسرائيل يهودي وانقوقلنا في الأرض بنكا كدقونا وانقوقلنا أمما حال أي بلشيهم أيضا طوائف يقوعا أيضا بلك بحديث كوكا يقيقلنا منهم وحاكم إذا الصالحون كون ولا سمع كم ومنهم وحاكم إذا دون ذلك هو أقوى فكين يعني الصلاح قوة جارية ولكن قوة فكين حمان كتل معنا وبلوناهم وانا امتحانين غير بني إسرائيل بالحسنات ورجال باكو امتحانين يوسيئات حمانيال لعلهم يرجعون سيئة صلاة سيئات سيئة حسنات وحوي حالة ونيسان أو برواق إيا النحمة إيا عاصمات إيا لنا وصو امتحانين ونصيروا امتحان سيئات نوقو امتحانين gumaysi iyo dad loo hosgeeyo iyo jizya laga qaado iyo cudurro lagu rido iyo imtixaanaad lagu keenana ayadana waxa way abaara ku dhacay iyo nasiyaadka waa labada imtixaanka waa la geliyay say usoo laabtaan sidaas Allah leeyahay subhanahu wa ta'ala fakhalafa waxa ka dambeeyay min bacdihim kuwa gadaashooda khalfun caruur baa ka dambeeyay ama khalfun kuwa macnaha ka dambeeyayaal ka dambeeyay kuwii hore markay tageen waxaa bedelay kuwa kala bedelay kuwa dambe oo warisuu dhaxlay alkitaaba kitaabkii dhaxlay kitaabkii tawreedaha dhaxlayo kuwii hore ka guddoomay kala wareegay yaakhuduna waxay qaadanayaan kuwan dambe carada hada aladna yani carada hada shaygan kiisa soo muuqda shaygii aladna ee dhawaa kan oo lagu wada hada adduunyada lagu wada adduunyadan dhow ama aan qiimaha lahayn liiday waxay ka soo muuqdee u soo banaan baxa ayay qaadanayaan ويقولون وحين ليهم مركي أدنيدا موقال كذا قادنا سيغفر لنا ونلود مداف دبا نلود مداف دونايو إلهي وانا حديثي زوا واسع وإن يأتينا بإيماد عرض يعني موقال هدو إيماد موقال الدنيا كمل أو أصب الله بحانا نسيه أو كيهر أو كلاء يأخذوها دروي قادنا موقال كيهر يطلسي أدنيا هر مما من هذين هلا أصب بحانا يعني ما ديني أنا وقادنا ألم يؤخذ صلى الله عليه من عليهم بشر النفاق الكتابي كتاب بلن في صلى الله عليه وسلم سو كتاب كتوريد إن الكل رقمان أو يدك جارسيان أو يدعك النقلان فلن كما حاسس هورا الله مقام ألا يقول إن يسرعون من على الله ألا دشيسا إلا الحق وحجر أمويان حق مويان إن يسن إله وحجر دشيسا كشري إلا سو كتاب بلن في معه ودرسوا ألم يؤخذ في صحة منتهي صلى الله عليه وسلم كتاب بلن في ودرسوا صوميسا أخرين ما فيه كتاب واحد يحسن صومين أخرين والدار دارتي الأخيرة إيدن بيتي أيها خير بدل للذين كنوا أخر برسا يتقون حصنا يا الله كحصنا أفلا تعقلون وما إلى عقل العين إذا وحجر العين أيضا الله يسومين وقطعناهم في الأرض معناها ممكن كبه قينيو كوح هذا غني والله خيري ومضي سيجتين الرئيس من إسرائيل هيدي هلك النبي لهيدي boqorada halka boqor lahayn isku duubnay ee qaranka ah waxa loo qeybiye tawaa'if kooxa loo qeybiye marka lagu kala firdhiyo yaani waxay noqdeen
وما كلا معناه واحد كلا تكتبون وقطعناهم في الأرض أمما وحاكمنا ددوا ونكسنا وكمل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هو صومر ليه غوا ونكسنا دينتي إلهي كسو دجيه كتاب في توراة كتو سنة وكمل مركو نبي محمد صلوات الله وسلام عليه الرميين وحاكموا كملا قولوا كسو كيو كسو كبع الصلاحة ولاك كسو كيو يعني وحوي قولوا حنا وكمل ومنهم دون ذلك قولوا صالح انت قوة كسو كيو يعني ولاك أنقالين كسو كبعي وحمان كبعي كوانا وكمل معه وامتحانه ربنا سبحانه وتعالى حالات ونولاكا برواقه هي النعمة وكو امتحانه سيئات وحالات حنا وكو امتحانه labadiiba waxa ma tiri intaana waxa loo imtixaanaya inay soo laabtaan oo waxa ay ku jiraan balistaan ka noqdaan ma taayna ka noqonin rabbina subhanahu wa ta'ala qoliyaha hore ee warkooda la soo hayay wala ka dambi khalafa min ba'dihim khalfi waxa uu leeyahay muhaafid khalfi hadii la yiraahdo oolaanta macnaha la reebay caruurta la yiraahdo khalaf hadii la yiraahdo macnaha wax kasto ka dambeeya la yiraahdo adiga qola ka dambi qoladii hore qolo kale ka dambayso dhaxlay meeshoodii qolada dambe ayaaba qoladii hore ka daran qoladan dambe ee dhaxlay yaani culimada qaar waxay leeyihiin waa nasaaro oo yahuud ka dambe qolana waxay leeyihiin meehe waa ka guda weyn tahay nasaarana way soo galaysaa yahuudna waa soo galaysaa qolyahoodii dambeeyay kulliba soo guda galaysaa adigu qolada hore aad loo dhaleecay ee dhibka badnaa macangajiinta madaxa aska qola ka dambe qolada ka dambeysayna kitaabkii bay dhaxleen kitaabkii tawreeda ayay dhaxleeno waxay ka dhaxleen kuwii iyaga ka horeeyay ee odayaashooda ahaa iyo aabayaashoodii bay ka dhaxleen markay dhaxleenna yaani kitaabkii dhaqankiisii iyo mabaadidu amray maysan ku dhaqmin adduunyada dhaxsadeen adduunyada ku badasheeno yaakhuduna arada hada al-adla yaani shaygan dhow kan dhow adduunyadan taata dhow ee meel fogba aan gaarsiisnayn ee berrita dhamaanay wixii uga soo muuqdo u soo banaan baxa ayay qaadanayaan kitaabkii bay ku iibsanayaan macnaha kitaabkii bay ku bedelanayaano meeshii loo baahnaa inay tacaaliimta kitaabka dadka gaarsiiyaan oy daacad ka noqdaan kitaabkii intay qariyaan baa waxoogaaga adduunyada u soo banaan baxay ee u soo muuqday bay qaadanayaan markaasay haddana ayagoo saa yeelay iyo haddana waxay leeyihiin waa naloo dambi dhaaf ilaahay ka jaan qabnaayo ilaahay baa noo dambi dhaaf macnaha waxa weeyaan makrigii alla bay ka aamin noqdeen dambi dhaaf iyo waxay tirsanayaanba in macnaha waxa weeye wanaag ay heli doonaan xumaantaana waa ku jiraan haddana tii oo kale hadday helaan dheeftii ay shalay kala haayeen waa naloo dambi dhaafi mid lamida maanta hadday helaan xataa dayn maayaano war shalay baynu qaadanay tii shalay hadiiba ilaahay naga dhaafata in laga daayo odhan maayaan haddana way qaadan sidaas way macnaha in yaatiina caradu miluhu yaakuduuh yani mar labaad hadduu yimaado xataa way qaadanayaan alla subxaana watacaala macnaha yani wuxuu tilmaamaya inay nimanka kaasi niman adduunye ku fogaada yihiin oo mabdaoodii iyo diintoodii iyo caqiidadoodii iyo kitaabkii tawreed ahaa adduunye daraaddeed uga tegay adduunye daraaddeed iyo xoolo daraaddeed ba uga tageen macna sidaasaa macnaha aayaddu tilmaamaya waxaa laleeyahay culimadooda ayaa waxay ahaayeen iyo qolyaha maxkamadaha fadhiyo iyo yani qolyaha maamulka ahay yaa waxay qaadan jireen rish way qaadan jireen markay ruuxa waxay xugminayaan labada ruuxa isaystee u yimaada ayaa waxay dhihi jireen kii laaluushna siiya unbaa loo xugminaya laaluushka markay qaataan yaa waxay odhan jireen waa laynoo dambi dhaafi doonaa ilahay makfiradiisa iska waasaxe berrita haddana tii oo kale markay timaado haddana laaluush bay macnaha wax ku kala xugminaya sidaasay markay ahaan jireen baa laleeyahy culimadoodana alla subxaana watacaala waa ka ku eedeeyey adduunye iyo jaah iyo sumcad ilaasha ay ilaashanayaan bulshada dhexeeda in ay waxyaalo fara badanoo kitaabkii tawreeda u qariyeen maa marka taasaa laga wadaayo dheefta adduunya usoo banaanbaxaysa qaadanayaan tawa arrintaasaa marka ilaahi subxaana watacaala ku eedeeyo ku diido waxaa layidhi wax la yaab la weeye kitaabkii ballankiisiisoo nimankii ballanka kitaabka galay maca oo inaysan ilaahay ku been abuuranin waxaan gar ahayn ayna ku been abuuranin ballankaasoo nimankii salaka galay maa nimanka maxay ballanka uga baxayaan weliba kitaabka soomaynan akriyin oo niman kitaabka akriyey maa macnaha kitaabka way akriyeenoo jaahilka maa ballanka kitaabkana nimankii shalay galay wey oo inaysan ilaahay wax ku been abuuranin oo kitaabka aysan adduunye dhaafanina ayagoo intaasoo dhan la sameeyey ayaa haddana macnaa wax wey eedhan ka baxeen daarta aakhira ayaa u wanaagsan bu rabbilahi subxaana watacaala dadka alla ka xasuna ee miyayna taas ogeyno miyaydaan ogeyno aydaan aakhare u xilanaynin oo caqligiina uusan idin siinayna aakhiriya adduun wax loo dhiga ma ahe
والأدنيين آخرين كويسة من بعض فأصلين معنا وحوي نمك عقل يقرش ولعين وقطعناهم وانقوقيني في الأرض دولك دحدي سانكوقيني أمما وانقيبني أو كوحان كدين وقطعناهم وانقوقيني في الأرض دولك دحدي أمما حال أي كوحين أما وقطعناهم أي صيرناهم وحنك أهلسيني في الأرض دولك دحدي حال أي أمما بانك أهلسيني يعني كوحان كأهلسيني منهم وحاكمنا الصالحون تذكون ولا كما كمل اسمون حابقابنا وموضع حميه قل يولا سنة وكمل ومنهم وحاكمنا دون ذلك كاس هو كسكينا وكمل ذلك كاس للشيء وصلاحة يوناجا يعني السكان ولا صلاحة قل يكسكيه حمان قدعين وكمل معه وبلوناهم وامتحانين بالحسنات حال دور ولا كما كو امتحان كاس هو برواقب النحمة امتحان كدول والسيئات حالة الحمى وانكون امتحانه وامتحانك مصائبك الشدائد أدونك معنا كان وانكون امتحانه لما دموا كلمي لعلهم يرجعون سائل الله تعالى مثل لقيهن الله وشدي لقدوني فخلق وحاكدا به من بعد قضاشونا خلف عروضة كدن به أما قل لك لا كدن به ورثوا قليها ورثوا نحلي الكتاب كتاب التوراة تعالى يعني آيات الله سبحانه وتعالى مركوا النبي هذا كور من فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة إلى سبحانه وتعالى ولا صلاة ضيعبي أي النبي يدي ولا سلاء إلا يصور من كدم به ومعناه وحويان كدموا معي ولا صورتوا نحلي الكتاب كتاب كتوراة نحلي يأخذون قوة قادنا يا عرض هذا الأدنى عرض هذا كان وحي كفوا مقضي قادنا الأدنى إدو كان دو وأدير الغور شيء دو الدنيا ده wixii ka soo muuqdo oo u soo banaan baxa oo u soo gacan gala ayuu qaadanaya carabka waxa la yiraahdaa ma yacridu lil insaan wixii insaanka u soo muuqda oo banaanka ugu soo baxa ayaa la yiraahdaa carabka la yiraahdaa macna dheef baa laga wadaa ويقولون waxay leeyihiin markay yaani muuqaalka adduunyada qaadanayaan iyo wixii u soo muuqda waxay leeyihiin sayughfar lana wa lana dambaati dadkayba qabaano dunuubtay galayaan oo muuqda waxay isku tirinayaan inay dadka Ilaahay ugu fiicnaayeen وإن يأتيهم هدي ويماد عرض هدي يعني موقال الدنيا ويماد أما الناس الدنيا هدي ويماد أو مثله كيهر أو كلانا يأخذوه إسانه ويقاضنه مروا البقو شانس الدنيا ويماد دبع مضى يحيانا وحوي ويقاضنه ما شاء يكون قاضنه يعني الدين دي وكدوس سن معنا أو مبدي رب سبحانه وتعالى بدل كيسي أي معناها أدونك قاضنه ألم يؤخذ من الله قادم ربنا سبحانه وتعالى عليهم كشوط الصول لما قادم ميثاق الكتاب كتاب كبلن كيسي صول لما قادم كتاب كالتوراة بلن كيسي مناوكي قليس وما أهين ألا يقولوا إنيسا الأرنين على الله ألا تشيس إلا الحق وحجر أمويان إلهي إنيسا دين كيسا وحجر أهين قدرين والله أين مصدرين بلن كي نوعها نوكي لغا قادم سومان كتاب كالتوراة كويا لي بلن كاقلي سومان ودرسوا كوي درسي سومان ألم يؤخذ عليه oo wadarasuu soomaynan akhriin oo mayna darsin maa fiihi kitaabka tawrada waxa ku jira soomaynan akhriin oo niman garanayay maynan ahayn way ahayd wadaaru daarti al-aakhiratu ee dambaysay ayaa khayrun u wanaagsan liladiina kuwa u wanaagsan tahay yattaquuna dhowrsanayo oo macaasida iyo dunuubta ka dhowrsanayo kuwa daarta aakhira u fiican oo adduunka uga fiican lama soo nasgara dhigana ma ee afala tacqiluna warmiyadan aqli lahayn war aqligiinu ma idin bari waaye adduun iyo aakhiro wax isu qalma ma ah isu dhigma ma ah aakhiradiina doorto adduunkan kadaata ku iisamina aqli xataa waxa ku garataan ma weeyeen walladina kuwa yumassikuna qabsanaya bil kitaabi kitaabka kuwa qabsanaya kuwa kitaabka ku dhaqmayo oo wa aqaamu salaata toosiyay inna anagu la nudiicu ma aan dayacayn ajra al-muslihiina kuwa yani waxa hagaajiya oo amalkoodii iyo niyadoodii iyo dhaqankooda hagaajiya kuwa waxa soo kale ka ajrigooda iyo abaalkooda ma dayacay macnaha walladina yumassikuna bil kitaabi waliya waxa leeyihiin waa yahuudi laga sahalay kitaabkuna waa kitaabkii tawreeda qoladii kitaabkii tawreeda qofkay salaadana hagaajisay oo sidii loogu talagalay u tukatay qolada abaalkooda marnaba la diici maayo wala sidaasi waa tafsiir qolada waxay leeyihiin walladina yumassikuna bil kitaabi hadalku wuxuu u wareeyay ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kitaabuna kitaabka quraanka sidaasna waa ra'yi kale oo fasiriinta qaarkood maraya laakiin siyaaqa marka la fiiriyo dadkii laga soo hadlayay waxay ahaayeen yani waxa weeye yahuud bay ahaayeen walladina kuwa yumassikuna qabsanay bil kitaabi kuwa kitaabka qabsanaya awaamirtiisa raacaya waxyaaluhu rabayna ka hadhayay ila tawassuka taasala
oo aqaamu salaada oogay oo sidii loogu talagalay u tukaday innaa anagu laa nudiicu kuwa muslixiin baa la dhahaa kuwa noocaasa muslixiin baa la dhahaa muslixiin hadday yihiinna innaa anagu laa nudiicu ma aan dayacayno ajra almuslixiina kuwa wax hagaajiya yani ajrigooda ma dayacayno alla subxana watacaala kuwa noocaas oo kale ah ajrigooda lama dayacayo iyo abaalkoode meel buu u yaallaa maalintii loogu talagalay rabbi subxaana watacaala u qorsheeyey bayna heli doonaan macna waid nasakna aljabala fawqahum kaanahu dullatun wadannuu anahu waaqicu bihim khuduu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiihi lacalakum tattaquun wadkur waxaad xustaa id wakti xus ama was'alhum waxaad weydiisaa nimanka hadda kula jooga nebiyo ee yahuudda id wakti nasaknaa aan kor yeelnay aljabala buurtii fawqahum dushooda markaan buurtii qaadnaye aan dusha ka saarnay kaannahu sidii isaga oo buurkaasi dullatun daruur haraysay oo kala korkaa laga saarayo sidii daruur hadhkeedu uu hayo oo kaleeto sideedoo kaleetaa madaxooda la saaray wadannuu waxayna u maleeyeen annahu buurkaasi waaqicun inuu yahay mid dhacaya bihim iyaga inuu ku fadhiisanayana way moodeen wa qulnaa lahum markaasaa waxaanu ku nidhi khuduu waxaad qaadataan maa aataynaakum waxaanu idin siinay biquwatin si macnaha waxa weyaan dadaal ku jiro oo caziime ah ku qaata wadkuruu waxaad xustaan maa fiihi waxa dhexdiisa ku yaallay axkaam iyo sharaa'ica xusa oo qaata macna lacalakum tattaquuna si aad u cabsataano ilaahi subxaana watacaala ciqaabtiisa aad uga dhowrsataan bal warkaa markaan ku nidhina xus ayaa lagu leeyay buurtani waa buurtan soo marnay ee fi suurati baqara aan kusoo marnay warafacnaa fawqahum utuura bimiisaaqihim waqulnaa lahum udkhuluu baaba sujada sidaas buurtii macnaha waxa weye dusha laga saaray buurtii dusha laga saaray buurtaas marka waxay ahayd baa laleeyahay kitaabkii tawreed ahaa markii inta loo soo dejiyey la keri waayo oo wax walba inta lagu sameeyey imtixaan dhinac walba laga soo galay ay yani waxa weyaan ay macnaha waxa weye sami waayeen yaa ilaahi subxaana watacaala inta buur weyn oo meesha ku taallay inta la qaaday baa dusha laga saaray markaasaa waxaa la yii yani dushooda yaa la siiyey sidii daruur dusha macnaa waxa wey dushooda oo kaleeto oo hadhkeedii uu hayo markaasaa waxaa lagu yidhi kitaabka tawreeda wixii lagu soo dejiyey si dadaal ku jiro ku qaata kuna camal fala halkaa markay joogaan bay marka waxay muujiyeen inay hogaansan yihiino mufasiriintu waxay sheegayaan inay yeero sujuudeen sujuud weliba dhinac ay ku sujuudeeno ilna waa dhinacna waa ku sujuudsan yihin isha kalena buurta iskaga ilaalinaya taasoo kaleeta la sheegaya maxay ku qaataa marka kitaabka sharaa'icda dhexdiisa ku taallana xusa oo qaata si aad ilaahi subxaana watacaala ciqaabtiisa isaga ilaalisaan ood uga cabsataan macna wadkur waxaad xustaa ama was'alhum waxaad weydiisaa nebigow id wakti nasaqnaa aan kor yeelnay ay rafacnaa aljabala buurtii fawqahum dushooda kaannahu sidii isagoo dullatun daruur haraysay oo kale wadannuu weliba ay maleeyeen annahum iyagu waaqicun annahu buurku waaqicun inuu yahay mid dhacaya bihim iyaga kusoo dhacay sidaasay moodeen waqulnaa lahum markaasaa waxaan ku nidhi khuduu waxaad qaadataan ma aataynaakum waxaan idin siinay qaata yani kitaabkan kadaata waxaan kitaabkan tawreedan idin siinay guddooma biquwatin ay bijiddin wacazmin waay si dadaal ku jiro oo macnaha waxa weye caziima ku jirta ku qaata macna xoog ku qaato oo yani si dadaal le u qaato wadkuruu waxaad xustaan maa fiihi kitaabka waxaa dhexdiisa ku yaallana xuso oo ku dhaqma waa kitaabka tawreeda axkaamtii ku taala axkaamtiisana dhaqan geliya lacalakum tattaquuna si aad u cabsataan oo kitaabka ku dhaqankiisa iyo xusuustiisu uu idin dhaxalisiiyo taqwada rabbi subxaana watacaala ama si aad isaga ilaalisaan ilaah oo kitaabka dhaqankiisa ugaga dhowrsataan oo uu gaashaan idinka noqda cadaabka rabbi subxana wataala ciqaabtiisa waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaluu balaa shahidna an taqula ywma alqiyaamati ina kuna can hada aafiliin wadkur waxaad xustaa id wakti akhada uu qaaday rabbuka rabbiga min bani aadama aadam caruurtiisa xaggooda min duhuurihim qabaryaalkooda xaggooda uu ka qaaday duriyatahum caruurtoodii uu ka soo qaaday oo waashhadahum uu markhaati geliyey calaa anfusihim nafafyaalkooda uu dushooda markhaati geliyey naftoodana ay isku markhaati kaceen qaa'ilan xaal uu ku leeyahay buu markhaati geliyey alastu sooma ihi birabbikum rabbigiin soomay qaaluu markaasa waxay yidhahdeen balaa yani waa tahay rabbigana waa tahay shahidnaa waan markhaati kacnay yani naftanadaan ku markhaati kacno waan qirnay arrinkaa isaga an taquluu
sidaa waxaan u yeelnay an taquluu lianlaa taquluu si aydaan u odhanin yowma alqiyaamati maalinta qiyaama si aydaan u odhanin inaa anagu kunaa waxaan ahayn can haadaa kan xaggiisa aafiliina kuwa iska halmaanta waxaan kadaata ilaahu aad nagu soo dejisay iyo waxaan aad naga doonaysay waaban halmaansanaynoo dad waxaan ahayn aan warba ka haynin si aydaan u odhanin daraaddeed ayaanu saa u samayn aw amase taquluu lianlaa taquluu si aydaan u odhanin daraaddeed baan saa u yeelnay inamaa ashraka waxa uu shariig yeelay aabbaa'unaa aabbayaashanaa min qablu horaan ilaahayo wax kula wadaajiyay addoommadaas wa kunnaa anaguna waxaan uun ahay duriyatan caruur baan ahay min bacdihim oo gadaashooda annaguna caruurtoodii ay dhalanay ka dambeeyey umbaan waana iska raacno aabbayaashana iyo awowyadana meeshay mareen ubaan iska dabamarnay afa tuhlikunaa miyaadna halaag marka oo miyaadna ciqaabi bimaa facala almubdiluuna kuwii baatilka watay oo awowyadoodi iyo aabbayaashooda ma waxay sameeyeen dartii baad noo halaag ilaan annagu waxba maanaan la soconin ayagoo maan iska dabagaleen sidaasi aydaan u odhanin daraaddeed baan saa u yeelay wakadalika sidaasoo kaleana nufasilu aayaati aayaadka u kala dhigdhigaynaa oo dadka aan ugu cadcadaynayna walacallahum yarjicuuna iyo si ay usoo laabtaan aayadan waidaa kada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waxay ka mid tahay aayaadka qur-aanka xagga yani waxa wey macnaheeda aada isugu khilaafsan ishkaal badan baana ku jira ishkaal fara badan ayaa ku jira laba tafsiir oo xoog badan ayaa aayadda macnaha waxa mufasiriintu ay ku fasiraan labada tafsiir mid walba bushi buu leeyahay mid walba yani bushi unbaa lagu furaa oo meelo dulduleela ah unbuu leeyahayo salim ah waa si kale xoog badan yihiin taqriiban midka hore ayaan maraynaa oo waxa weeyaan aayadda waxa macnaha waxa wey ay leedahay waxaad xustaa nebigow rabbigaa markuu aadam caruurtiisa dhabarkooda markuu ka soo qaaday carruurta dhale aadam caruurtuu dhalay ayaa dhabarkooda waxaa laga soo qaadaya kuway sii dhaleeyeen macnaha caruurtii oo dhabarka ku jirtaa dhabarka laga soo ururiyey allana subxaana watacaala naftooda ayuu qirsiiyey oy isku markhaati kaceen arrintay ka markhaati kaceenna waxa wey rabbi markuu soo ururiye wuxuu ku yidhi soo rabbigiin ma qiraysaan inaan rabbigiina haa rabbigana inaad tahay waanu qiraynaa arinkaana waa arrin aan ictiraafsannahay oo markhaati iyo maragiisaba aan furayno sidaasay dheen haddu markii carruurta la soo ururiyey oo laysu keenay dhabarkana laga soo ururiyey arintaana waxaa loo yeelay oo inta loo soo ururiyey hadalkaa loogu jeediyey ooy u qireen ujeeddada laga leeyahay waxa weye aakharo markay tagaan waxyaalahay ku cudurdaaran doonaan in loo gooyo cudurdaarka in loo jaraa la rabaa xujo berrinta ay xujaystaan inay waayaan baa la rabaa oo laba shay inaysan xujaysanin ka koobaad waayaana inayna odhanin ilaahu haafiliin baan ahayno dad wax ka warhayaba maanan ahay markii macnaha la ciqaabo la yidhaahdo dembi baad gasho waana laydin haystaa oo de maxaa naloo haystaa cudurdaar baanu leenahay dad halmaansano waxan ba aan warka haynin baan ahay saa inayna odhanin waa ko ta labaadna waxa wey inaynan odhanin shirkigan iyo waxan aan galla iyo dembiga gaad awowyadana iyo aabbayaashana unbaa nooga horreeyey ayaga unbaanan anagu ku dayanoon iska taqliidinay waxaba yaraatee nooga waaniyey ama nooga sheego ama noo cadeeyana maanaan helin ayagaan iska dabagallay marka ma iyaga dabagalkaa iska dabagallay baad ilaah nagu ciqaabi taana inayna odhanin oo ay noqdaan niman si toosa ayagii wax loogu sheego wax loogu cadeeyey berrina xujadaa iyadaa loo gooyo oo yna xujadaa sheegsheeganin sidaas daraaddeed baan u yeelnay bu rabbilahi subxana watacaala tafsiirka noocaasoo kale marka oo in caruurtii aadam nabiyullaahi aadam aabeen intaan la abuurin makhluuqa intiisa kale makhluuqa maxaan ujeedaa ibni aadamka intaan la abuurin ayaa dhabarkiisa inta caruurtiisa laga soo ururiyey in alla inta dhalan doonto oo dhan oo rabbi subxaana watacaala uu isu keenay ayuu markhaati gelay arrinkan uu qirsiiyey markay qireen kadibna meeshoodii baa lagu celiyey waa tafsiirka hore macnaha noocaasoo kaleetana axaadiis baa kutusaysa horta in aadam dhabarkiisa caruurta laga qaaday oo halkaa markay ku jireen alla subxaana watacaala inuu rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa uu markhaati geliyey iyaguna ka markhaati ficeen arintaasi arindoodii ka taagan tahay maa lagu odhan doonaa ruuxa ahlunaarka maalinta qiyaamada haddii aad dhulka waxa dhexdiisa oo dhan maanta lagu dhiibi lahaa madaxaaga ma ku furan lahay oo cadaabkama iskaga furan lahay markaasuu odhanaya allow haa markaasaa waxaa lagu leeyahy wax ka fudud baan kaa doonay oo arinkaa ka sahlan oo muxuu yahay adigoo aadam dhabarkiisa ku jira aabbaha dhabarkiisa adoo ku jira
ayaan ballan waxaan ku kala qaadanoo ballankaa aad igaga qaaday ood ballan ku gashay inaadan cidna wax iigu darinoodan ila wadaajinin tawxiid inaad la timaado ballankaasaad gashay intaasaana ka fududayd xoolaha inaad isku furato wax alla dhunta yaallo dhan taasoo kaaga fududayd baad la imaan weyday macna waadna diiday inaad ii shariig yeesho mooyaane sidaa daraaddeed waxba yaraatee lagaa yeelaya maayo xadiiskaasi saxiixaynka ku yidhi marka caruurta aadam in dhabarkooda laga soo saaray waa arrin qadciya wa oo suga wa laakiin meesha laysku khilaafsan yahay waxa wey aayadan tadaasi ma waxay ka hadlaysaa xadadka noocaas iyo soo saaridii iyo isukeeninta caruurta waaga dhabarka laga soo ururiyey miyay ka hadlaysaa aayadani oo sugan mise aayadani waxay ka hadlaysaa mas'alo kale iyo xukun kale ka hadlaysa culimada marka odhanaysa midaasaa loola jeedaa waxay daliishanayaan xadiis kale oo ibnu cabaas iyo cumar ibnu khaaab iyo radi allahu canhu laga warinayo oo uu leeyahay nebigu salawatulli wasalaamu caleyh ilaahay wuxuu ballanka ka qaaday caruurta aadam intuu dhabarka ka soo ururiyey ayuu markaasi ballan ka qaaday oo uu firdhiyey ballankii laga qaadayna waxay nebigu wuxuu akriyey salawatulli wasalaamu caleyh aayadan qur-aanka alastu birabbikum qaaluu balaa shahidna an taquluu yawma alqiyaamati ina kuna can hada aafiliin aw taquluu ila akhiri aaya laga gaado aayadaasu nebigu akriyey salawatulli wasalaamu caleyh xadiidku marka wuxuu ku cadyahay aayaddu inay xadadka noocaasa ka hadlayso oy halkaas tusayso oo aadam caruurtii marka dhabarkiisa laga soo ururiyey inay ahayd buu xadiidku kutusaya laakiin xadiidkaa laisku khilaafsan yahay ma sugan yahay nabiga ma ka sugan yahay oo ma marfuuc ba mise waa mawquuf ayay muxadisiintu isku khilaafsan yahay qaar badanna inuu marfuuc yahay nabiga gaadhsiisan yahay ayay sugayaano riwaayaadkiisa marka la sugayo xadiidku marfuuc weye sidaas ayaanan ku dooranayna in macnaha waxa wey aayadda aan ku fasirno tafsiirkaa nabiga ka soo aroray salawatulli wasalaamu caleyh oo caruurta aadam inta laysu ururiyey oo halkaa laysuugaya caalamulzar baa la yidhahda ayagoo firirsan halka inta laysugu ururiye ilahay baa garasu ururiyey inuu la hadlay oo markhaatigan fureen markhaatigankaasa markay fureen kadibna rususha iyo kutubtu ilaahay soo dejiyey oo dadka xusuusinaya ballankii isaga ah ballankii isaga ilaa markay addoommadu soo gashaan ballankii ma xusuusnaa laakiin rusul iyo kutub buu ilaahay soo dejiye oo xusuusinayso war caruuray ballankaasaad qaadeen war ibni aadamo ballankaasaad qaadeen war ilaahay baad ballan la gasheen ballankii baa dib loo xusuusinaya macna sidaas in la yidhaahda ayaad moodaa inuu tafsiirka xooga badan yahay in ay sidaa tahayna aasaar aad u fara badan oo saxaabada iyo taabiciintaba ka soo arooreysa ayaa kutusaysa macna xadiidka marfuuca marka laga yimaado tafsiir midkaa isaga w kaa inaan ku gaabsanno ayaana fiican tafsiir kalaa jira oo macnaha ibnu kasiir iyo keyrkii ay dooranayaan oo ay leeyihiin macnaha waxa weyaan labada xadiista soo aroortayna waay waa mawquuf oo ma sugna marfuuc ma aha aayadana way duwayaanoo waxay ka dhigayaan shaygan kadaata la markhaati geliye ma aha aadam oo caruurta dhabarkiisa laga soo ururiye waxay leeyihiin waa caruurta nabiyulaahi aadan ka farcantay oo u kala dambayn doona adduunka qolo walba markii adduunka ay timaadaana markhaati gelintani dhacaysa waxaan la markhaati gelinaya ma aha in hadal lagula hadlay laakiin aayaadka ilaahay meel walba uu dhigay ee muuqda ee kawniga ah iyo fidrada qalbigooda uu geliyey markhaati gelintu middaa iyadaa wey wax haba yaraatee lagula hadlay ma jirin ayaguna ay qireen laakiin qiritaanku aayaadku mar hadday iska cadcadiin meel walba loo dhigay ee ilaahi subxaana watacaala rabbinimadiisa kutusaysa taasaa waxaa laga soo qaaday sidii iyagoo qiray oo kaleeto macna marka fidrada iyo aayaadka kawniga meel walba loo dhigay taasaa laga wadaa macnaha qiritaankay leeyihiino yani waxa weya halkaasay marinaya tafsiirna midkaa isagaa wey laakiin ka hore ayaad moodaa inuu ka xoog badan yahay xadiidkaas yani waxa wey daraadii xadiidkuna waa xadiis sugan weye sida muxadisiintu ay sheegayaan duruqdiisa marka laysu ururiy waxoogaa bushiya marka tafsiirkaa ku imaanayo yani bushiyada ku imaanayo waxaa ka mid a ilaahi subxaana watacaala ma odhanin aayadda waid akada rabbuka min bani aadama ma odhanin min aadama aadam dhabarkiisaan ka soo qaadnay lama odhanine min bani aadama aadam caruurtiisaa laga soo qaaday caruurta dhabarkooda laga soo qaaday caruurtii baa lasoo qaaday caruurta dhabarkoodii baa laga soo qaaday saasaa daahirka aayadda ka muuqata min dahrihi dhabarka aadam lama dhihina min duhuurin baa la waa la jamciyey washhadahu lama dhihina waa ashhadahum baa la ayagii o dhan baa meesha wada jooga marka waxa wey bushiyo noocaasoo kaleeto aayadda daahirkeeda ayaa tafsiirka xadiidku uu macnaha sheegayo ayaa lagu furaya oo macnaha waa ay mufasiriinta qaarkood ku furaya waana midda keentay inay mufasiriinta qaarka tafsiirka kale dooranaya inay tafsiirkan xadiidka ka leexdaan oo tafsiirka kale ay doortaan macnaha oo ay yidhaahdaan waa caruurtii aadam oo kala dambaynayo qolaba qolada kale dhabarkooda laga soo saaray markhaati gelintuna waa aayaadka ilahay u daariyey subxaana watacaala meel walba saa inay yidhahdaan taasa ugu qasay adiga tafsiirka hore ee xadiidka kutusaya ayaan iska marayna wadkur waxaad xustaa id waqti akada uu qaaday rabbuka rabbiga uu qaaday min bani aadama
aadam caruurtiisa markuu alla ka qaaday aadam laftiisa laga waday min duhuurihim dhabaryaalkooda markuu ka qaaday duriyatahum caruurtii baa la soo qaaday oo dhabarka aadam laga soo saaray wa ashhadahum wuxuu markhaati geliyey alla calaa anfusihim nafafyaalkooda ayagaa isku markhaati kacay waxay isku markhaati kaceen marag fureen inuu rabbi subxaana watacaala rabbigooda keliya yahay rabbi kalena ayna lahayn iyo macbuud kale qaa'ilan xaal uu leeyahay buu ilaahay markhaati geliyey uu ku leeyahay alastu birabbikum soo rabbigiin may soo anugu rabbigiin may qaaluu waxay yidhahdeen balaa rabbigana waa tahay saasay markhaati fureen shahidnaa waan markhaati kacnay waan markhaati furnay oo rabbinimadaada iyo yani ilaahnimadaada iyo waanu ka markhaati kacnayo arrin aan qirayna wey saasay yidhahdeen an taquluu ywma alqiyaamati inaa kunaa can hada aafiliin tani waxay tilmaamaysaa labadan dambe waxay tilmaamaysaa sababka adoommada inta dhabarka looga soo ururiyey ilaahay uu u markhaati geliyey oy halkaas tawxiidka ugu qireen oo ballankaa ay u galeen sababka loo yeelay waxa wey in berita ayna cudurdaaranin saas man berita inayna cudurdaaranin oo cudurdaarkaasi lamaba xusuusna adduunka hadii la yimaado haddaad tirahda ka war adduunka haddii la yimid ruuxu markuu soo dhacayo soo dhashay ballantaa uu rabbi la galay subxaana watacaala asagoo dhabarka aadam ku jira miyuu xusuusan yahy ma xusuusna wuxuu ka garanayna ma jiro ma xusuusna laakiin rusushaa baraarujisay oo kutubta rabbi baa dib addoommada ugu baraarujisay ballantaa iyadaa in horay loo galay macna an taquluu lianlaa taquluu si aydaan u odhanin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada si aydaan u odhanin daraaddeed ayaanu macnaha u qaadnay ballankaa isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaama si aydaan u odhanin inaa anagu kunaa waxaan ahayn allow can haada arinkan xaggiisa aafiliina kuwa iska halmaansan waxan aad ilaahu noo haysatay iyo tawxiidkan iyo shirkigan galla iyo dunuubtan aad noo haysato waaban iska halmaansanen kutubna nooma imaan rusulna nooma imaan yani wax hore oo qalbigana kusii jirayna ma jiro saasaydaan o dhan maxaa yeelay ballankaa hore eed qaadeen baaba yani waxa weyaan qalbigiina inuu xusuusnaado loo baahan yahay rusushii iyo kutubtiina waa isoo gaadhay aw taquluu lianlaa taquluu saydaan u odhanin inamaa ashraka waxa uu shirki la yimid iyo gaalnimo aabaauna aabbayaashana min qablu horaan aabbayaashana unbaa shirkigan iyo gaalnimadan bilowday iyo awowyadana wa kunaa anaguna waxaana duriyatan caruur baan oo min bacdihim gadaashooda anaguna caruurtoodii unbaan ahay oo ka dambaysay oo waxay awowyadood ka soo gaadheen oon qaatay yani muqalidiin unbaan ahay meelna laga horreeyey unbaan iska marnayo aabbayaashana unbaan iska dabagalnay annagu mar haddaan muqalidiinnayo dadkii waxan bilowday aanaan ahayn qolo nooga horreysana aan iskaga dayanayno waxna baraarujiyana aanaan haynin maxaad ilaahu noo halaagi oo nagu haysataa saas si aydaan u ohanin daraaddeed macna afatuulikunaa yani hadalkoodii baa wali socda wa kunaa waxaanaan duriyatan sidaan u odhana caruur baan ahayn oo min bacdihim gadaashooda afatuulikunaa ilaahu miyaadna halaagi bimaa facala almubdiluuna kuwii baailka watay ee xaqdarada watay ee awowyadana iyo aabbayaashana ahaa ma waxay sameeyeen baad ilaahu inaga noo halaag ilaan anagu waxba maanaan samaynino waxoodin baan iska dabagalnay ma taasaad ilaahu noo halaag inasaydaan u odhanin oo xujadaa la idinka gooyo daraaddeed ayaanu ballantaa idinka qaadnay wakadalika sidaasoo kale ayaanu nufasilu u faahfaahinaynaa alaayaati aayaadka u kala dhigdhigayna faahfaahintaasoo kalean aayadka u faahfaahinaynaao dadka aan u kala dhigdhigayna walacallahum yarjicuuna iyo si ay u noqdaano dadku ay uga laabtaan dunuubta iyo xumaanta ay galayaan uga noqdaan macna watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalaka minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaa aayadani waxay ka hadlaysaa saddexda aayadoodba ee isku xiga waxay ka hadlayaan miaal ilahi subxaana watacala uu bixinaya waxaa miaal laga bixinaya ruux ilaahi subxaana watacaala intuu cilmi baray oo diinta iyo iimaanka waafajiyey ka baxay ridoobay masaalix adduunye iyo dana adduunyana u ridoobay markiisii horena diinta yaqaanay kaasaa miaal aad u liita laga bixinaya watlu waxaad akridaa nebiyow calayhim dushooda waxaad ku akridaa naba aladii kii warkiisa ku akri aataynaahu aan siinay aayaatina aayaadkanaga aan siinay kii aayaadkanaga aan siinay bal warkiisa kuwa kaasa u sheeg oo fansalaka markaa ka dhex baxay minhaa aayaadkii ka dhex baxay aayaadkii markaan siinay kadib oo uu fahmay oo uu qaatay kadib buu ka dhex siibtay faatbacahu marka waxaa raacay ashaydaanu shaydaan baa dabagalay shaydaan baa saaxiib u noqday marka fa kaana marka wuxuu noqday min alghaawiina kuwa lumaybu ka mid noqday markaana shaydaan inuu la xidhiiday inuu lumay isweydiin mara marka walow shinaa haddaan dooni lahayna la rafacnaahu waanu kor yeeli lahayn ninkaa isaga ah biha aayaadkii baanu ku kor yeeli lahay
meesha uu ku dhacay iyo qashinka uu ku dhexdhacay kor baan uga qaadi lahayn oo haddaan dooni lahayn aayaadkaas sababkoodaanu kor ugu qaadi lahaynoo wuu ku dhaqmi lahay oo wuu rumayn lahay muusan ka laabteen walaakinahu laakiinse akhlada wuxuu isku waariyey akhlada wuxuu u iishay ila alardi dhulku u iishay xagga dhulku u iishayo dhulka iyo adduunyada iyo raaxadeed iyo barwaaqadeedii buu isa siiyey famasaluhu markaa kaa masalkiisu kamasali lkalbi ay oo kale lamid ay oo kale in taxmil watabaca hawaa laakinahu akhlada ila alardi dhulka ayuu u iishayo wixii dhulka yaallay iyo quruxdiisii ayuu macnaha waxa weye ayuu u iishay watabaca wuxuuna raacay hawaahu naftiisu waxay u qurxisay buuna raacay sharcigii rabbiya aayaadkiisa markuu ka tegey famasaluhu masalkiisu midkaasi kamasali kalbi ay oo kale buu la maal yahay ay oo kaleu la mataal yahay in taxmil xagee buu kala mataal yahay waa ka wajushabu dhanka isagii eygu isaga egyihin waaka in taxmil calayhi haddaad caydhiso eygii yalhas u carab laalaadin aw tatruku haddii aad ka tagtood iskana daysana yalhas haddana u carab laalaadin haddaad faraha ka qaadi iyo haddaad caydhsato labadaba carabkuu laalaadinaya wuu hiraanhirhaya daalika arrinkaasina masalu lqawmi qolo masalkood wey aladiina kuwaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka naga beeniyey dadka aayaadka naga beeniyey masalkoodi iyo tusaalahoodu kaasi faqsus qiso oo u waran alqasasa qisooyinka u waran oo dadka u sheeg lacalahum yatafakaruuna si ay u fikiraan oo maskaxdooda uga shaqaysiiyaan saaa waxaa xumaaday maalan yani saaa waxaa xumaaday oo tusaale ahaan iyo masal u xumaaday maalan jihat lmasal masal ayaa xumaaday oo masal ahaan u xumaaday alqawmu masalu lqawmi qowm masalkii ayaa macnaha xumaanta lagu gooni yeelaya aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka naga beeniyey oo wa anfusahum nafyaalkoodana kaanuu ahday yadlimuuna kuwa dulmiye qolyahaas masalkooda ayaa ceebaynta lagu gooni yeelaya yani waxa weyaan aayaadka beeniyey naftoodana dulmiyey aayadani marka guud ahaan sababu nusuulkay kusoo degtay iyo ruuxa laga hadlayaa inuu misaal guudoo la bixinaya ay tahay mooyaane nas cad oo marfuuca kusoo arooray mayu jiro shaksigan inuu shaksi gooni aya misaal guudun aayaddu inay tahay umbaa ka muuqan laakiin waxa weye mufasiriinta qaar kamid a waxay tilmaamayaan dabcan waa israa'iiliyaadka iyo kutubta reer bani israiil bay ka soo qaateen nin la odhan jira balcaam ibnu baacuura nin noocaasoo kaleeto oo yani yahuudi ahaa oo noocaasoo kaleeta ayay kusoo degtay bay yidhahdaan macna oo intuu ilaahi subxaana watacaala yani wax fahansiiyey oo diinta wax ka siiyey oo markaa kadibna diintii uga tegey adduunyo daraaddeed ka doortay macna nin noocaasoo kaleeta ayaa laga hadlayaabay leeyihiino caasigii reer bani israaiil jiray laakiin waxa weyaan wax nas oo kutusaya ma ay jirto in aayaddu ay ninkaa kusoo degtay misaal guud oon ay ka bixinaysaa ruux ilaahay intuu diinta fahansiiye dhaqankeedii laga waayo oo adduunyo ka doorto ka tegey ruuxaasaa misaal aad u liisa laga bixinaya ninkuu dooniba ha noqdo markaas saas weya waxaad ku dul akriraa nebiyow mid warkii ku dul akri kaasoo aayaadka naga aan siinay aayaadkii markii la siiyey kadibna ka dhex siisay insilaaqa waxaa la yidhahda yani shay marka shay laga dhex siibo sida haragga neefka xoolaha looga dhex siibo oo kaleeto yani diinkii oo uu ku dhex jiray oo intuu bartay uu ku dhaqmay ayuu ka ridoobay oo ka dhex baxay waa ka tegey markuu diintii ka dhex baxay ilan iyadaa shayddaanka ka ilaalinaysayna shaydaan baa dabagaloo la xidhiidhay wuu dabagalay kuwa lumay buu ka mid noqday buu marka leeya rabbi subxaana watacaala haddaan dooni lahayna iraadadanada iyo doonitaankanaga iyo qorshahanaga iyo qadarkanagaa saa ku dhacay haddaan dooni lahayn in aan kor yeelno oon kor u qaadnoon aayaadkan sababkood kor ugu qaadnona waan yeeli lahayn laakiin maanaan dooni man la rafacnaahu biha waxa wey qurunkan uu ku dhex dhacay iyo adduunkan uu ku dhex dhacay iyo hoostan uu u dhacay kor baan uga qaadi lahaynoo aayaadka sababkooda ku dhaqanku ku dhaqmayo sababkooda ayaan kor uga qaadi macnaa waxaa waafajina aayaadka inuu ku dhaqmo hadduu aayaadka ku dhaqmana darajo siraa la gaarsiin laha macna saas muusan yeelinoo kor looma qaadine dhulka ayuu isku dhajiyey aklada ila alardi dhulkuu laazimayo waxaa laga wadaa adduunka iyo wixiisiibuu u ishay barwaaqa adduun iyo yani waxa weyaan muuqaaladeeda iyo dheefteeda iyo waxaasu u ishay oo uu ka doortay diintii alla subxaana watacaala hawadiisuuna raacayo diintii rabbe uu raacsanaa intuu ka tegey buu markaa kadib hawadiisi iyo naftiisu waxay u qurxisay buu raacay oo diin ka dhigay misaalkiisa haddaad doonaysa waxa weyaan ey buu la misaalya maxaa yeelay eyga haddaad caydhisiya haddaad iska daysaba hiraanhir iyo inuu carabka laalaadiyo calyadu ka daadato ma daynay saas macnaheedu waxa wey waxaa laga wadaa
haddaad waani ood wax u sheeg oo aad u caqli celis iyo haddaad iska daysa laba goro ma soo noqonay sida eygaba haddaad cayrisiyo haddii kaleba carab laalaadin uusan u daynaynin yuu kana haddaad waanisiyo haddii kaleetaba oo faraha ka qaado laba goroba wax ma qaadanay saasaa macnaa waxa wey masalka laga wada masalka sidaasaa laga wadaayo nin wax qaadanaya ma uu ahaa misaalka laga bixiyo waa misaal la bixiyo yani makhluuqaadka ilaahay ka ugu liita ee dadku ay agtooda ugu liita yuu rabbi ku misaaliye subxaana watacaala yani waxa wey meel xun baa la dhigay yani dadku ugu liita nin ilaahi subxaana watacaala intuu diin galay adduunye ka doorto ka tegey waa dadka ilahi subxana watacala makhluuqa ilahi kuwa ugu liita man masalkaasina waxaa masalkaasi tusaale ugu yahay dadka aayaadka naga beeniyey qisooyinka noocaas oo kale u sheeg baa nabiga salawatullahi wasalaamu aleyh uga waran si ay u fikiraan oo bal caqligooda uga shaqaysiyaan masal baa xumaaday qowmka aayaadka naga beeniyey naftoodana dulmiyey masalkooda iyo tusaalaha loo samaynaya ayaa si gooniya u xumaaday ceebaynta iyo cayda lagu gooni yeelaya macna watlu calayhim naba aladii aataynaahu watlu akri nabigo calayhim dushooda waxaad ku akridaa naba aladii kii warkiisa ku akri aataynaahu aan siinay aayaatina aayaadkanaga aan siinay yani qur-aanku isagoo shaygu aan dhicinba ayaa laga yaabaa haddana inuu ruux misaalaan ugu soo qaado wax dhacay oo kalena laga dhigo taasi waa iska suurtagal inay dhacdayna waa iska suurtagal macna watlu calayhim dushooda waxaad ku akridaa nebi o naba aladii kii warkiisa aataynaahu aan siinay aayaatina aayaadkanaga aan siinay oo fansalaka ka dhex siibtay minhaa aayaadkii ka dhex baxay dhaqankoodii iyo ka tegey ka ridooday faatbacahu markaa uu raacay ashaydaanu shaydaan uu raacay fa kaana wuxuu noqday markaa min alghaawiina kuwa lumay ee baadiyoy markaa ka mid noqday walow shinaa haddaan dooni lahayna oo doonitaanka nagu ku hormari lahaa oo qorshuhu nagu saa ahaan lahaana walow shinaa rafcahu inaan kor yeelno oon kor u qaadnoon wanaajina haddaan dooni lahayna la rafacnaahu kor baan u qaadi lahayn biha aayaadka daraadood iyo ku dhaqankooda uu ku dhaqmo ayaan kor ugu qaadi lahay oo adduunyadan uu hoos ugu dhacay hoos dhacan ku yimid baan kor uga qaadi lahayn haddaan dooni lahayn walaakinahu laakiinse aqlada wuu iishay oo wuu leexday oo wuu isku dhajiyey ila alardi dhulka xaggiisa u leexday dhulka iyo wixii yaallay buu u leexdayo markii kor in loo qaado la rabayba dhulku isku dhajiyey kor uqaadkani waxa wey ninka aayaadka ilaahay ee diintiisa ku dhaqmaayo waa sarreeya meel wanaagsanna waa leeyahay darajo sarena waa joogaa darajadaasi markii la rabay in la gaadsiiyo yuu dhulka isku dhajiyey dhulkaaba laga fujin waayba dhulka macnaha wixii yaallay iyo adduunyadii iyo yani waxa wey birbiriqeedii ayuu u iishay oo uu jeclaystay saas w man famaluhu watabaca wuxuuna raacay hawaahu hawadiisiibuuna raacay oo hawadiisiibaa marka diin u noqotay balwad iyo naftiisu waxay jeclaatay yuu marka diin ka dhigay iyo dhaqan famaluhu kaa masalkiisu kamasali lkelbi ey ayuu la masal yahay ey wuxuu kala masal yahay haddaad daysi iyo haddii kaleetaba yani waxa weyaan carabku laalaadin ey asagana haddaad wax u sheegtiy haddii kaleetaba xumaanta kasoo noqon maayo masaluhu kamasali kelbi ey oo kaleu la masaal yahay oo uu la tusaale yahay in taxmil hadii aad alayhi in taxmil calayhi haddaad eyga caydhiso yalhaas wuu carab laalaadi oo uu hiraan hiri aw tatruku haddii aad iska dayso ood faraha ka qaado uu iska nastana yalhas laba gooroba wuu carab laalaadin yani waxaa la yidhahda xayawaanaadka kale waxay hiraan oo carabka laalaadiyaan oo caliyo daadiyaan markay ama ooman yihiin oon daran u hayn ama ay daallan yihiin laakiin eygu asagu hadduu daallan yahay iyo hadduu nasan yahay hadduu ooman yahay iyo hadduu dherigsan yahay hadduu qorax joogo iyo hadduu hoos joogo mar walba carabkiisu waa laalaada mar walba caliya ka daadanayso carabka inbuu laalaadinaya waana hirahirahaya sidaas macnaha waxa weyaan eygay ku gooni tahay eygaa marka waxa wey lagala tusaale dhigay ilahi subxaana watacaala tusaalayaasha qur-aanka uu bixinayo waxba kama xishooda in allaha laa yastaxyi an yadriba maala maa bacuudatan famaa fawqa suuratulbaqara waa kuso marnay kaneecuu mar ilahay miisaal ku bixin ey baa lagu bixin mar waxaa inoo imaan doontaa iyadoo macnaha baashan la yidhahdo maaragtay caarada lagu bixinayo mar waxa wey iyadoo daksiga lagu bixinayo ilahi subxaana watacaala wuxuu doona wax ku miisaalay miisaalkiisana lama ictiraado rabbi subxana watacala dalika arrinkaasi masalulqowmi qolo masaalkood wey qolo tusaalahood wey aladiina kuwaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka naga beeniyey qolada aayaadka naga beeniyey tilmaantooda iyo sifaatkeeda waa sidaas ee faqsus u waran alqasasa qisooyinka u waran oo dadka u sheeg lacalahum yatafakkaruuna si ay u fikiraan oo caqligooda dib ugu laabtaan saaa waa xumaaday masal baa xumaaday masalan misaal ahaan buu u xumaaday saacadu nicmo iyo bisa oo kale la mid tahayo yani waxa weyaan masalan waa tamyiiz
tamyiizkaasi wuxuu fasirayaa faacilkii oo meesha ka go-an saa masal baa xumaaday masalan masal ahaan xaggii buu u xumaaday jihatulmasal buu ka xumaaday tusaale ahaan buu u xumaaday alqawmuna waa maqsuusun bidami waxa la yidhahdo oo saa nicmo iyo biise iyo waxaa gadaashooda dhaca ismi la yidhahdo maqsuusun bidami macnaha shayga ceebaynta iyo wax ka sheega lagu gooni yeelayo marka waa mubtadi waxaa macnaha la odhanaya almaqsuusu bidami ceebta ka lagu gooni yeelayo iyo macnaha wax ka sheegu alqawmu masalu lqawmi qolo masalkood wey aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka naga beeniyey kuwa aayaadka naga beeniyey masalkooda iyo tusaalahooda iyo sifadooda weeyaan waxa ceebaynta iyo wax ka sheega lagu gooni yeelaya macna wa anfusahum nafafyaalkoodana kaanuu ahaaday yadlimuuna kuwa dulmiyey naftoodana dulmiyey oo naftooda dulmi ka galay oo u soo jiiday ilahi subxana wataala ciqaabtiisa iyo cadhabiisa dad fara badan baa marka ku tusaalayaa ku misaalano dadka culamaa usuuga la yidhaha diinta ku adeeg oo ku shaqaysa oo u soo gala keliyata oo u qaata macnaha waxa wey labiska culimada u qaata keliyata aad wax ku hesho oo risqi aad ku raasatay noocaasoo kaleeta u gala ama adduunba u galo oo dawlad u galo oo bulsho uga mid noqdo inuu diinta kula dagaalamo waana sheekh dad fara badan hadda dawladaha jira ka agdhow wadaada oo diinta madaxa kaga taagan misaalkan oo kaleeta misaalkan oo kaleeta leeyahay culamaa usu oo dhan baa meesha soo gudagalay diinta Allah subhanahu wa ta'ala ruux intuu baray haddana adduunyo ka doon waxa weeye waa ruux waxa weeyaan misaal la bixiyo iyo sifo la yeesho sifada ugu liidato man yahdillahu iddu ilahi hanuni فهو متكاسي المهتدي إساقا متكهنوصا ومن يضلل عدي باد يودنا فأولئك كوازهم إيه كلمة أيها الخاسرون كوا خسارين هنون إلهي با إسكالا وافشنتنا إساقا منكو إلهي هنون يوم بهنوصا منكو الله اللمية سبحانه وتعالى نقوى خسارين قوليها إلهي اللمينا كوا خسارين من يهدي الله منكو إلهي وهنون يهي فهو متكاسي المهتدي إساقا متكهنوصا ومن يضلل منكم الله بادينا فاولئك كواسهم ايه كلمه ايا الخاسرون كوا خسارين قول در كواس كدعد نبي صلى الله عليه وسلم عليه افتتاحات كما فرفرانيو هذلك او بلابنيو وحكم بالله جل دعاء دار ان الحمد لله نحمده ونستعينه وفي امنجر من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له منكم الهي هنون ياي اذن ما بادين عدوا الله بادينا اذن ما هنون كريس معنا ولقد درعنا لجهنم ولقد درعنا حقيقه وزيارنا وان أبورني ولقد درأنا وان أبورني لجهنم جهنم وحانو أبورني كثيرا انفر بدن من الجن جن والإنس إنس كمل قار بدن إنس جن كمل جهنم وانو أبورني وحانو قلت لك الله بإن جهنم كلام طيب لهم وحاوسبنا بقليها إنس كثير كاسو لهم يجب قلوب أيوسبنا قلوب كاسو لا يفقهون بها أين حكتامين ولهم وحاوسبنا بأعين إنداء أسبنا إنداء حصل لا يبصرون بها أين حكوا أركين ولهم وحاوسبنا بآذان دقاء أسبنا دقاء حصل لا يسمعون بها أين حكوا مقلين أولئك قوات كالأنعام حولا قلوا بل اسكبع حولها إليهين هم إيقوا أضلوا وكسي بعد من البدين حولها بطهما أولئك قوات هم أيها كلهم أيها الغافلون قوة المنصن قوة إسها المنصن وحبا إسكأوغين قوة وياه فصلى الله سبحانه وتعالى ولي معناه وحوي إلهي سبحانه وتعالى إلهي مركو مخلوقات في أبوري أبوركي هوريسي وأبورها ييبا قارنا جهنم وقلت لك عليه قارنا الشنب وقلت لك عليه إلى الرب إنتو سن مخلوق أبورين با وحي أغا سيدي كران نقوم دونان أغا شها أغابنا الرب كقر شيء أو كقري من والبنار من في قل لها إلى من في شنب قل لها إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلهي سبحانه وتعالى الدومديس أيو أبو ريقار كمدا مركزة وحولي قوة النار تقول لك عليه كوانا هو أبو ريقوة كاليسانا مركزة يقول كوانا وقوة سنة أقول لك عليه مركزة النبي قال لي سؤال ويديو وحولي النبي الله مركبها من اسكدين وحرضيه وربا اللو قرشيبا qorshahan aan garab mari karin baaban camalka ka dayno marka waxay dulu beeyeen nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam ali shaqeeya oo amal fala min walba wuxuu ilaahay maalinka u xariiqo u qor ayaa adduunka loo saari taasina adduunka naftiisa wax kale ma qabanay ninkii janno loo qorayna jannadaas ayaa amalkeedii iyo jidkii gaarsiin lahaa mooye wax kale uma dhadhamay adduunka laba uma dhadhamay taasaa ku raaxaysan naftiisa ku dagaysa dhaqan buu ka dhigay kii kale naar loogu talagalayna jidka jannada laguma soo duwi karo
meeshana u macaan tanuu rabaa wax kale maba rababa halkaasuu dhaqan ka dhigtay nin walba marka camalkii loogu talagalay baa ilaahay u sahlayaaye shaqaysta oo camal fala buu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka ha xuskanin oo hadin ilaahay wuxuu ugu talagalay ma garanay kulli meesha ilaahay loogu talagalay baa leeyeen yani waxa way waxba islu geyn maayo dad badan baa shubahada qadarka macnaha waxa uu ku kasoo marka rabbi subhanahu wa ta'ala adoomada qaar badan oo jinniga intii kamida jahannama ugu talagalay buu oo uu abuuray inay galaanba maxaa yeelay qadarka ilaahay horay wuxuu ogaaday inay ahlu naar noqon doonaan taasoo loogu qorshay qoladaas marka tilmaamaha ilayeen baa loo sheegay adduunka marka joogta waxa ku garan kartaa quluubtooda waxba kuma gartaan quluub bay leeyihiin laakiin quluubtooda xaqa ma garan kumana hanuun mana qaadan indhay leeyihiin oo indhihii iyo aaladii meesha waa ku taala jihaaskii meesha waa ku yaala ishii laakiin ishaasi il xaq arki karta ama akhrin karaysa ama fiirin karta ma baahdo maba ku arki karaan dhago waa leeyihiin oo dhagihii waa ku yeelaan oo shanqadha waa maqlayaan laakiin waxa way dhagahooda dhaga xaq maqli kara maaha xaq kuma dhagaysan karaan mana aqbali karaan dhagooda xaq saasa tilmaamaha lagu yaqaan macnaha waxa weeye qalbi xaq qalo iyo indha xaq arki kara oo diinta islaamka arki kara diinta rabbi soo dejiyo subxaanahu wa tacaala iyo dhago maqli karayo qaadanaya wixii ilaahay soo dejiyo kuma yaalaan dhagahoodu shanqadha kale iyo waxyaalaha kaleetay u furan yihiin qalbigooduna waxyaalaha kale u furan yihiin indhahooduna waxyaalaha kale u furan yihiin saasaa lagu yaqaana soo dad fara badan hadda noocaas ma dad fara badan oo bulshada ka mid a noocaas waa diinta rabbi subxaana wa tacaala indha ay ku fiiriyaan kuma yaalaan qalbi ay ku dhegaystaan ama ay ku qaataanna kuma yaal dhaga ay ku maqlaanna kuma yaal laakiin ganacsi iyo adduunye iyo tiknolojiye iyo maado adduunye iyo horumar iyo waxyaalo kale sheeke iyo balwad iyo haddaad u furto weligoodba ka daali maaya saas qolyaha noocaas oo kale waa qolyaha rabbi uu leeyahay jahannamo kuwaan ugu talagalay kuwa jahannamo laga buuxin doono saasuu rabbi subxaana wa tacala inoo sheegaya maa kuwaasi xoolaha oo kale wayaan barbadi subxana wa tacala xoolaha waxay kala mid yihiin oo layskaga shabahaya xoolaha maantoo dhan haddaad u dhadhawaaqdo inay uun shanqadh maqnaal mooye hadalkaaga ma fahmi karaan ujeedadaad ka leedahayna ma garan karaan wax xoolo waa nabigi ilahi subxana wa tacala waa ka aayad kale ku odhanaya oo macnaha waxa way kaga hadlay wamahalu aladiina kafaruu kamahali aladii yanciqu bima laa yasmacu ila ducaaan wanidaa xaggan kuso marray suurat albaqara yani haddaad u dhadhawaaqdo xoolihii dhawaqaaga inay maqlaan mooyaane laakiin miyaad caydhinaysaa miyaad yani waxa way soo dhawaadaad leedahay macararaad leedahay ma kaa fahmi karaan waxay kaa qaadanahayaanna ma jiro waxba kaa fahmi saasoo kaleeto xoolaha halkaasi kala mid xaqa kaa qaadan maaya xoolaha waaba kasii liitaan baa leeyi oo dhankay kaga liitaan dhow dhinacba waa kaga liitaan xooluhu hadday ninka raaca ay bartaan marka dambe hadalkiisa way yaqaanaan saas marka uu leeyahay war xararo warhabaha ka cararo oo sababda noocaas oo kale u yeeri waa didayaan xoolo markuu macnaha daajiyo oo intuu daaqa kusii daayo uu u heesana yani way xasiri oo xooluhu si fiican bay u daaqeen markuu biyaha intuu kusii daayo biyaha macnaha waxa way ugu heesana yani waxa way si fiican bay u dharkayaan yani waxay la qabsadeen sababda hadalka qaadkiisa bay la qabsadeen laakiin kuwan kadaas nooca xataa laguma hayo xoolaha marka waa kasii liitaan xataa aqbalka waa kaga sii liitaan waxaa kale xoolaha kaga liitaan xoolaha ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu u abuuray bay hayaan xoolaha waxaa loo abuuray tii loo abuuray bay ku taagan yihiin kamayna leexanin waa makhluuq ilaahay rabbina subxaana wa tacaala jidkii ugu talagalay hayo ayagu laakiin jidkii loogu talagalay bay ka leexdeen sidaasay xoolaha uga liitaan rabbi baa saa odhanay subxana wa tacala nimankii xoolahay ka liitaan layidhi dadka dusha iska saaray ee madaxda ka dhigtay ee yani waxa weye kaba dambeeye ee ayaga macnaha cilmiga iyo waxbarashada iyo ciziga uga dambeeya ka war soo kuwaasi kama sii xumo mawjada geel hebel kuwa dabayaal baanu sii dabanaallaa kuwa xoolaha abaan sii dabanaalla inagu bal naxasnimadeenna iyo caqli xumadeenna kuwaasaan sii dabanaalla oo aan cilmi iyo garasho iyo khibro iyo tiknolojiya aanu is dabanaalla macna xumaanteen iyo weli mabdaada saasuu rabbi ku tilmaamay subxaana wa tacaala waana haafiliin oo dad wax ogba ma ah buu rabbi ku tilmaamay subxana wa tacala walaqad dara'naa xaqiiqee waan diyaarinay lijahannama jahannamo waxaan u abuurnoon ugu talagalnay dara'naa macnaa darigu waa khalqi waay khalaqnaa waan abuurnay markii laydin abuurayba gaal iyo islaam waa kala hayeen walaqad dara'naa xaqiiqee waan abuurnay lijahannama jahannamo waxaan u abuurnay kasiiran in fara badan oo min aljinni walinsi jinniga insiga ka mid lahum waxaa u sugnaaday kuwa iyagaa quluubun quluub baa u sugnaaday quluubtaasoo laa yafqahuuna biha ayna xog fahnayn walahum waxaa u sugnaaday acyunun indha u sugnaaday indhahaasoo laa yubsiruuna biha ayna xog ku arkayn walahum waxaa u sugnaaday aadaanun dhagaa u sugnaaday laa yasmacuuna biha ayna xog ku maqlayn wax waa ku maqlayaan laakiin xaqayna ku maqlayn
diintii iyo waxyigii alle iyo mabdigiisa iyo yani dhaqankii alle soo dejiisayna ku maqleen kuna qaadanay ulaaika kuwaas kal ancaami xoolahoo kale xoolaha daaqa oo kale bal iska dhaaf xoolahoo kale inay yihiin hum iyagaa adallu ka baadinimo badan xoolaha ayagaada ka sii liito xoolahaada ka sita oo xoolihii jidkii ilaahay ugu talagalay bay bahayaanba akhlaaqiyaadkooda haddaad fiirisa qaar badan hadda maanta joogana akhlaaqda xoolaha xataa waa ka liitaa akhlaaqda xoolaha akhlaaq male laakiin waxaa jira shay sidriyo ilaahay ku abuurayo noloshoodu waxay ku socotaa rotiiniyaad ilahay u abuuray rotiiniyaadkaa loo abuuray ibni aadamkii caqliga lahaa maanta akhlaaqiyaadkooda haddaad fiiriso xoolaha xataa waa ka liitaa reerkaasay macnaha gaarsiin ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa alghaafiluuna kuwa halmaansan ee waxba ogeyn iyaga wa walilaahi alasmaau lxusnaa walilaahi ilaahay keligii bay u sugnaadeen alasmaau magacyaasha alxusnaa ee wanaaga badan ee fadcuuhu alla barya biha magacyaha ku barya wadaruu ka taga oo daaya alladiina kuwa yulxiduuna leexinaya fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa leexinayo meeshoodii ka leexinaya sayujzawna waa la abaalmarin doonaa kuwa maa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayaan baa lagu abaalmarin doonaa wax alla waxay samaynayaan abaalkeedu way heli doonaan ilaahay subxaana watacaala magacyo fara badan oo wan wanaagsan buu leeyay nabigeena salawatulhi wasalaamu caleyh waxaa ka asaxday inuu xadiis saxiixa ku yidhi ina lilaahi 99 sman ilaahay wuxuu leeyahay 99 magac 100 ilaa waaxida boqol ha laga reebay macnaha waa kusii cadaynaya man axsaaha dakhala aljanna ninkii kooba magacyahana jannadu geli bu nabigu salawatulhi wasalaamu caleyh koobidaasi waxa weye macaanidooda inaad koobto oo waxay ku faraysaa aad yeesho oo xifdido oo taasaa laga wada marka magacyaha ilaahay uu leeyahay ku ducaysto ilahay ku bari macnaa waxaad leedahay yaa kafuuru ikfir lii ka dembi dhaafow io dembi dhaaf yaa raxiimu irxamnii ka naxariistow io naxariiso saasoo dhanaysa macna yacni magaca alla subxaana watacaala baad ku tawasuli oo waxaad ku ducaysaa baryadaada ku gaadhaysa saas yeelo oo ilaahay magacyadiisa ku barya saasa macnaha aayaddu inoo sheegay waxaad iskaga tagtaan magacyaha rabbi subxaana watacaala marka 99 mee qaar badanoo laga warhaynin baa jira 99 xadiidka ku soo arooray in la tiriyo oo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 la yidhahdo oo yani waxa wey 99 la tiriyaay xadiidka tirmidi ku soo arooray ee sheegayahay waa mudraj xadiis saxiixa ma tirintaas markaa tirintaasi marfuuc ma oo nabiga ma gaarsiin sallallahu alayhi wasallam laakiin quraanka ka ururiyay culimada quraanka ka soo ururiyay ay ka soo culimada qaar kood ay sheegayaan magacyada ku jirta quraanka hadii la ururiyo 99 waa ka badan yihiin laakiin ilaahay subxaana watacaala 99 magac buu sheegay xadiidka nabiga kaleeto waxaa ku soo arooray rabbi subxaana watacaala magacyo uusan addoommadiisa waxba ka ogeysininba inay jiraan oo isagu la gooniya xadiidkii ducada yani waa kii odhan jira aw ista'sarta bihi fii cilmi lgaybi cindaka magacaad gooni la noqotay oo cidna aadan wax ka ogeysinin macna waa jiraan marka 99 magac ninkii koobaay jannadu kale magacyaha marka ilahay ku baray qolyaha magacyaha ilaahay leexinay ee jidkoodii toosnaa iyo macnahoodii saxdaa ka leexinayana kuwaana daaya oo isu kayda iyagii aniga isu kaana daaya waa goodi iyo taadiid waxay sameeyaan baa lagu abaalmarin doonaa ilhaadka waxaa la yidhahdaa shayga marka meeshuu ku toosnaa aad ka leexiso oo ka badacdo ayaa alxad la yidhahda waa meesha luxudka laga keenay ila luxudka waxaa la yidhahdaa qabriga oo dhinaca laga seexo oo meydka dhinac loo seexo aan qabriga kale barkiisa laga seexin luxud baa la yidhahda waa meesha laga keenay waxaa laga wadaa marka magacyaha ilaahay bay leexinayaan dhowr 3 macnaba way ku imaanayaan magacyihii ilaahay bay magacyo ka jeexeen oo sidii qurayshtu ay gaaladii yani carbeed ay sameeyeen oo kale magaca al-Uzza ee sanamyadoodu ay lahaayeen waxay ka jeexeen magaca alle casiiza laatana waxay ka jeexeen magaca ilaahay ee allah lafdul jalaala manaatana waxay ka jeexeen magaca alle subxaana watacaala mannaan ay ka jeexeen magacyaha rabbi oo magacyo laga jeexo oo laga qambalo oo laga soo qaato laga keenayo ilhaad waxaa noqonaya iyadana magacyihii rabbi subxaana watacaala magacyo uusan lahayn inaad dusha ka saarto magacyo kale inaad u bixiso adu kitaabka aan ku helin sunnada nabiga aan ku helin salawatullahi wasalaamu calayh inaad u bixisana waa iyadana waa ilhaad magacan ilahay ku sheegi looma sheegi karay ma naqaana magacyaha ilahi u habboon subxaana watacaala waxaa iyadana ilhaadka ka mid a magacyaha kitaabka alla iyo sunnada nebi ku soo arooray salawatullahi wasalaamu calayh haddaad tidhaahdo macnaba ma laha wax macno laga fahmaya maba jiraba sida dadka qaarkii ay u dhahaan ayadana waxa wey ilhaad fi asmaa illahi waxaa kaloo iyadana ilhaad ah haddaad tidhaahdo macnaha lagama wade macno kalaa laga wadaa oo meelo kale iyo qari kaleeta aad la aado
oo tiraahdo ilaahi subxaana watacaala yani waxa wey samiic maaho basiir ma aho xayi ma aho caliim maaho waxyaalo kalaa laga wadaa ujeedadu sida ilxaad wey waxaasoo dhan waxay soo gelaysaa wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaai halkaas soo wada gudagaleen macna walilaahi ilahay keligii bay usugnaaday alasmaau magacayaashii alxusnaa ee wanaaga badnayd ee fadcuuhu ilaahay barya bihaa magacyadiisa ku bari wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna iidaaya wy mana yulxiduuna leexinaya oo iilanaya fii asmaa'ihi magacyaha alle dhexdooda yani magacyaha allay leexinayaano meeshay ku habboonaayeen ee rabbi dhigay bay ka leexinayaan sayujzawna waa la abaalmarin doonaa maa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayaan yaa lagu abaalmarin doonaa wa miman khalaqnaa ciddaan abuurnay waxaa ka mid a ummatun koox ayaa ka mid a oo yahduuna hanuuninaya dadka bilxaqi mutalabisiina bilxaqi iyagoo xaq ku dheha wa bihi xaqa ayayna yacdiluuna dadka ku kala xugminayaan dadkaan abuurnay waxaa ka mida koox hanuun xaqa ku hanuuninaya dadka iyagoo xaq ku dheehan bay dadka jidka wanaagsan ku hanuuninayaan xaqa isaga abayna dadka ugu kala garsoorayaan oo ku kala xugminayan ku kala cadaalad ugu samaynaya qoladan taasi kooxdan iyay tamarta wa min qawmi muusa waan soo maray wa min qawmi muusa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun qoladan yaa laga wadaa marka culimada qaar waxay leeyihiin waxaa laga wadaa ummatulislaam baa laga wadaa ummadda nebi maxamed raacday salawatullahi wasalaamu caleyh ayaa laga wadaayo ayadaa waxay tahay laa tazaalu daa'ifatun min ummatii koox ummadayda ka mid oo weligeed xaqa ku taagan oo ninkii garabkeeda ka baxaya ninkii la dagaalamo doona usan waxba yeelaynin ayaa jiri doonta ilaa qiyaami saaca kooxdaasaa laga wadaayo ummadda islaamka weyaan sidaasay mufasiriinta qaarkood ornay wa miman cid waxaa ka mida khalaqnaa aan abuurnay ummatun koox ayaa ka mida yahduuna hanuuninaya bilxaqi xaqa dadka yani yahduuna annaasa dadka ayay jidka saxdaa ku hanuuninayaan bilxaqi mutalabisiina bilxaqi iyagoo xaq ku dheha wa bihi xaqii isaga ahaabayna yacdiluuna dadka ku kala xugminahayaano cadaalad ay ugu samaynayaan wladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka naga beeniyeyna sanastadrijuhum waan u seeta dheeraynana min xayu meel laa yaclamuuna aysan ogeyn yani si tartiib ah kiskis baan u qaadana kiskis baan u qabanaynaa min xayu meel laa yaclamuuna aynan ogeyn wa umlii waan u kaadini lahum iyaga ina kaydii aniga dhagartaydu matiinin midii adag oo xoog badan weyaan kuwa beeniyey aayaadkayga istidraajku waxa weye in aan markaba lagugula soo boodin lagu qabanin tartiib iyo tilaabo iyo darajo lagu qaado in lagu daajiyo in lagu jecel yaha lagu muujiyo lagu sasabo waxoogaa lagu subaan salaaxo mar aad isdhigatay kadibna lagu qabto taasaa la yidhahda taasaa macnaha waxa wey istidraajka laga wada marka yani waxa weyaan alahdu darajatan bacda darajo iyo manzilo in lagu qabto lagu wado ciqaabtaadii lagugu sii wado maalinba meel lagu gaarsiisi lagu wado meesha ugu dambaysa marka lagaa tuuro macna saasaa la yidhahda meel aysan ogeyn oo ayagu aynan islaamin waa laydinkaga imaan ayaanu ugu seeta dheeraynoo ka qabanaynaa si kiskis iyo tartiib ah yuu alla leeyahy subxana watacaala waana midda ilaahi subxaana watacaala addoommadiisa hadda kahor xagga laynoogu soo sheegayo aan soo marnay oo rabbi subxaana watacaala addoommada wuu barwaaqin markuu doonayo inuu qabto wuu ku barwaaqin maraad isdhigatay ood istiri waaba lagu jeclaaday oo raalli baaba lagaa yahay ood ishalmaansan tahay ayaa si kada marka lagu qaba wa umli lahum waanan u kaadin bu rabbi waan u kaadin oo intay isdhiganayaan oo daaqahayaan waan u kaadin maxaa yeelay dhagartayda xoog badan iska soo bood iyo caatifo iyo xamaas iyo wax kuma kala soconhaya rabbi subxaana watacaala qorshuhu hadda goor dejiyey wax ku wadaya macna waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka naga beeniyey sanastadrijuhum si tartiib oo kiskisaan u qabanayna min xayu meel laa yaclamuuna aysan ogeyn waan u seeta dheeraynaynaayo goortay ishalmaamaan baan si kadaa u qabanayna wa umlii waan u kaadini lahum iyaga waan u kaadin oo markaba kula soo boodi maayo qaban maayo ay dembiga u horeeya galaan maxaa yeelay ma la jecel yaha ma jacayl baad u daysanaysaa maya ina kaydii dhagartayda aan ayaga dhagrayo ayaa matiinun mid xoog badan oo adag dhagartaydaa adag oo waxaan doonayaa goor ay ishalmaameen oo isdhigteen oo isleeyihiin alala haddaad ugu fiicantiin si kadaa inaad ku qabtaan doonaya macna sidaas weyaan wallahu aclam